السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ومد الصوماليات ميلو البيتو أدوية كيغا سوغنتين وايد السلامية وواسكي تقبلوها كبلو فارح ولا الكيس معوكي كيرا بشير بالله مطاناين حسن قرد صاحب كيس قرش ودرس كيس كنولا وراونا قرسيكو هاجا بكاجا لكتي معان الشورية بناوين شانتا بقى بقوري شاليتو يان بيج كيغا وحان صور ديغي وواسيرو وواسك بيش ري حسن سيدي in uu qabanqaabinayo shir uu isaga horkeenayo beelaha degan Jubbaland gaar ahaan beesha sida waliba waxaan ummadda Soomaaliyeed cod dheer ugu sheegay inuu qabanqaabinayo inuu ka been sheego ugaas xaashi ugaaska beesha sida inuu rabo inuu ka been sheego asagoo lacag ku soo qaatay oo lacag ka soo qaatay Axmed Madoobe odayaal buu maanta isugu keenay magaalada Kismaayo waxay yiraahdeen ugaas Umar ba ugaaska hanjiray ugaas xaashi meel ugaasnimada ka soo gashay ma jirtay yiraahdo laakiin duqbulow taariikhda Soomaaliyeed iyo taariikhda waamo iyo dadka Jubbaland degan taariikhda si wanaagsan oo qurux badan ayuu u hayaa ugaas yarow adigu ku ceebeen maayo kuna caay maayo laakiin xaqiiqda waxa ay tahay waxa weeye afartan maanlaabayaal ee maanta Kismaayo isugu keentay inay yihiin rag lacag soo qaatay cid walba waa ogtahay ugaas xaashi dhaxalka iyo taariikhda ugaasnimada ugu timid qof walbo beesha sidaaba beesha beelaha Soomaaliyeed ee Jubbaland degan waa garanayaan wana la socdaan ummadda Soomaaliyeedna lama caburnayo TV-ga Jubbaland ee Axmed Madoobe ee waqtigiisa u dhamaaday wallahi muusan dadka been u sheegin inta duqbilow afkiisu ma garanaysaa furan yahay idaacadiisuna ay hadlayso wallahi inaan dadka laga been sheegin xaqiiqda dhabteed ugaas yarow ugaas kan dhigi baa tahay laakiin ugaas iimaankii ma garanaysaa Axmed Madoobe uu ka gatay baa tahay taariikhda maanta afarta xildhibaan ree xasan ay Jubbaland ku haystaan qaabkay ku timid baan garanaynaa sida aad ku hesheen iyo qaabka maslaxada ee ma garanaysaa ummadda la idinku dhaxyaan la soconnaa laakiin wixiina waa ka badbadis weey ummadda Soomaaliyeed baan wax yar u ifinaya dhageysta ugaas xaashi ugaaska beesha sade ee ma garanaysaa maanta laga been sheegtay ee saxda ah ee ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Jubbaland iyo beelweynta sida ay u ka soo jeedo ay taariikhdiisu garanayso lagama been sheeg karo ugaas yarow beelahan beesha waxa u dhaltay ree xasan ma garanaysaa ee beesha sida qaabka aad maanta afarta xildhibaan aad ku haysataan Jubbaland beeshana way idin ogtahay annagoo reer Jubbalandna waa idin la soconaa waagii dagaalka jubbooyinka uu socday ee todobaaleyda loo yaqaanay ee altaxaadka iyo axmaarada la isku hubeen jiray ee dagaalka Itoobiya uu socday waan la soconaa markii qaarna Kismaayo aadeen qaarna gadal yiraahdo altaxaadka lagula dagaalamo ee Itoobiyaanku beesha mareexaan ay hubeenayeen ee lala baxay ururkii SNF lala baxay ee beesha sida wadatay ee qaarna Kismaayo aadeen qaarna gada aadeen altaxaad baan la dagaalamayna ay axmaarada ka soo qaateen dhaqaalaha waan la soconaa waan ognaa gidoomiye ku-xigeenka ururka Dr. Ali Nuur Maxamed baa meesha ku dhintay waxaad u aaneyseen beelweynta kale ee sadaad u aaneyseen waxaad ma garanaysaa isku qanciseen oo idinka iska dhaadhiciseen ree xasan hadaatiin in doctorka ma garanaysaa arrintan ay ka dambeysay beesha gudaheed sidaa darteed weligiin idinka oo yuusayo oo gunuunacayo oo ma garanaysaa wax tabanayo yaa beelaha beesha sade ee beelweynta Soomaaliyeed wax walba ay xaq u lahayd si idinka la idin raali geliyo oo aad ku u noqotaan ba wax walba dhakada la idinka saar maanta waxay maraysaa inaad dhaqankii soo jireenka ahaa iyo taariikhdii soo jireenka ahayd inaad ugaasiyo barow adoo ugaas Soomaaliyeed oo hunguri uu ku qaaday oo dhaqaale uu ku qaaday oo Axmed Madoobe jeebkiisa ku jiro lagu ogyahay oo lagu la socdo inaad maanta dhaqankii iyo taariikhdii ka been sheegto ugaas xaashi waxaad maanta ku hadaaqaysan ugaas Umar baan garanaynay ugaas Umar baa ugaas ahaa 2011 buu dhintay yaas ugaas buu ahaa 2011 buu dhintay laakiin ugaas Umar sidee buu ku yimid ugaasnimada waa inaad ummadda u sheegtaan way uga been sheegaysan waana ummadda u sheegtaan ummaddu ay dareentaa ummaddu waa inay fahantaa way ugaas xaashi ugaaska maanta Axmed Madoobe iyo rejiimkan hadda jira yiri kuma qanacsan inaad ma garanaysaa ka been sheegtaan waa qalad ugaas Umar ugaas maxamed xaashigan hadda wuxuu u yahay adeer buu yahay
adeer buu yahay aabihii buu la dhashay sida ugaasnimada ugaas cumar uu ku qaatay qof walba oo beesha sida u dhashay ama reer Jubbaland waa garanay waana la socdaa aad iyo aad buu la socdaa ugaaskan hadda joogo eed ka been sheegaysaan taariikhdiisa ka been sheegaysaan aabihii awowgii baa dhintay magarasha ugaaska hadda joogana aabihii markii uu dhintay gabadhii uu ka dhintay ugaaska hadda joogo 2 jir buu ahaa dhaxalka ma qaadan karin wax ma maamuli karin dhaxaltooyada qaabka aheedii boqortooyada qaabka Soomaaliya ku dhaxasho iyo ugaas Cumar ku dhaxlay gabadhii buu dumaalay waa ugaaska hadda jiro hooyadii weey gabadhii uu ugaaska ka dhintay saxda ahaa buu dumaalay ugaas Cumar ilmihii buu mas'uul ka noqday cid ku qabsatay iyo cid kula dagaalantay iyo cid ma garanaysaay arinta ayada dood gelisay male waa loo daayo faraha looga qaaday laakiin dhaxashii iyo taariikhdii saxda ahayd iyo sandanadii saxda ahayd ugaaskii bay dib ugu soo noqotay waa ugaaska beesha shada weey beesha caalamkuna aqoonsan tahay duqbulowna aqoonsan yahay umada reer Jubbaland ay ogta taariikhda laga been sheegay ugaas Cumar baa taqaaneen waa adeerkii ugaaskan hooyadii buu dhaxlay aabihii dhimay dumaal buu ku yimid cid ku qabsata male wiilkana wiil yar oo 2 jir buu maantana waa kaas ninka talanay weeyaan waa ninka umada Soomaaliyeed wanaaga ugu baaqaya weey sandanadiiba ku soo noqotay maada u diidi karo ugaas yar raada ku wadana ma afar oday oo hunguri uu qaaday oo Axmed Madoobe $10 uu siiyay xataa $100 lama siin dhowr $100 baa la siiyay wanaagna miya sandanada ka ceebeen kara ama been ka sheekar no عقدة الرحاسة وإذن هيسوان أغنى آدي أدبان الله سعنا دكتور مغرسة على النور اقدوميه أورك واجا للدقالك الاتحاد كالدقال لما يسين الاتحاد ده مجريني كمرا الله حد للدقال كنت أنا نيجي دي الشيء بيان ما قراني واجا أحمر هذا إذكم مريحانة أتكسو قادني الشين نقالها كسو قادني الشين توبيو إيه ده يسين الاتحاد بلد الاتحاد كيوها كمرا الله حبوا الدقال لما يسين يتكلم بحسين قارنك اسمايا هذين ee qaarna gada ku soo hareen iyo jubooyinka aadayeen runta la soo sheegnay runta laga Xasan beesha sida maraxaan wallahi abaalka ay ku fiiri hadii la yiraahdo population iyo dad iyo magaranaysa abtir hadii la yiraahdo markii urmudug iyo laga tagay iyo dadka laga taga la dheeraash kaalinta labaad baad galaysaa beesha maraxaan galaysaa dhageysho laakiin markii la yiraahdo wiil hal keeno wiil sida maraxaan oo dagaal galayo أما نقارن مرحان لو قال يهلا كنا ليراد أنا راح أسوي سكن كانت اللحاد تضباط سديدات بعد قشة كانت السديدات تضباط بعد قشة كما سو بحث السديدات السجالات لكن ترى مركي ليراد أبطر ليراد كانت لبعض بقشة بيش السدة سيدا يكو أبا مقرسة كو أبا المرينيشو أي مقرسة كو سبش أو مدح كو صلاحش ما أنت ترترد سندنات سو جرتay baad maraysaa reexashano iyo ugaas yarow ma garanaysan magacaaga anan muhiimad badan xataa ay malan nin jeeb ku jiraata nin xor ee matid nin Axmed Madoobe ku shaqeysanayaata nin tolkii iyo reerkiisii dadkiisii iyo xaqiiqda dhabta ka been sheegayaata war siyaasadda gooni way laakiin sandanada laga ma beesho anigu siyaasadda Axmed Madoobe waa ka soo horjeeda laakiin waa ugaaskayga way Axmed Madoobe runta ku sheeg maalina ugaasnimada reer warfaa iyo sandanada reer warfaano duqbulow waligay ma xaqirno wallahi ana beenay noloshaydii ma xaqir inay reer warfaa ugaasyadeedii yihiin raga ugu taariikhda badan ogaadeen iyo reer Cabdil inay yihiin noloshayda ma xaqir laakiin siyaasadda Axmed Madoobe ee uu kismaayo ka wado waan ka soo horjeedaa mana sii shaqeynayso haka been sheegan ugaas sababta afar xilbaan ku heshay sababta magaranaysaa federaal haday tahay iyo madax salaaxid haday tahay waan ognahay waa ururka SNF la dagaalankii beesha kabralax la dagaalankii beesha ogaadeen la dagaalankii beesha majeerteen ee axmaarada lacagta kaga soo qaadanaysid iyo doctorka ku dhintay suu ku dhintaba uu dhintay dagaalka ku dhintay Allah u naxariisto laakiin taariikhda sandanada soo jireenkii dadkan daarood baa la yiraahdaa Soomaali baa la yiraahdaa iskama been sheegan beenna ma yaqaanaan بقرشة إن هذاك ناس كم صور فنيان لكن نين جاب كجراته جاب كأحمد مذوبة نيك جاب كأحمد مذوبة كجراته وواس حاشي وواس كجود باش الشذوي أبي بوكان أحلوريا أذير كينا دمال بكوقات أنا كوش جوش عمر وحقوقات دمال بكوقات
iyo gabadhu meeriyo ilmaho yaraa iyo carruurta yaraa buu ku qaatay raggii sandanada lahaa ee taariikhda lahaa maanta gacanta ku haya ugaas yarow nin jeeb ku jira tahay jeeb nin ku jiro ayaa tahay ma dagaalantid xabadana dabada iyo dhabarka kaaga dhacda waan ognahay markii la yiraahdo wiil mareexaan ama wiil sada hal la keeno oo safka la soo galiyo la yiraahdo waxa kaalinta lixaad bad gasha abtirna sada ahaana beesha lambar labaad gasha runta la soo sheeg waan salaam aad iyo aad baan salaam ya salaam alaykum rahmatullahi wa barakaat kan raan noqdo waxoogo yar waxbaan ifinayay barbagandada iyo beentu axmed madow wadaan ifinayay salaam alaykum rahmatullahi wa barakaat